magaalada Gargaara oo ka mid ah degmada Luqaya ee gobolka Awdal ayaa maanta waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo muddooyinkii u dambeeyay xeebaha gobolada Awdal iyo Salal ku marayay safar shaqo oo la xiriira arrimaha doorashooyinka ee dalka ka qabsoomi doona dhawaan waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay shacab aad u tiro badan oo ruuxaya caleemo qoyan wafdigan ayaa ugu horreyn haddaba waxaa la hadlay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee deegaanka qaar ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka degmada Luqaya iyo weliba maayirka degmada Luqaya Cabdullaahi Cali Nuur Duxood waxaanay halkaasi ka sheegeen kolkiisii horeba saylici kalluunka riyaha dhagaxtoola daaqa u footeeyay maanta maxaad u malaynaysiin maanta la afar door halkan yimaadana waa mahad ilaahay weeyaan wixii magaca u yeelay halkan ilaa Luqaya ilaa saylac u yeelayna kulmiye yahay maanta oo ay tahay nin walba codkiisa ha muujiyana abba tiradiisa ha muujiya laleeyahayna maxaad u malaynaysiin reer gargaaraadow rag iyo dumar qolo waliba madaxda inoo timid walaalaheenna inoo yimid indheergaratada inoo timid nin inii maqani ma jirto hadday wax inaga dhab yihiin sidaa la inoo sharfiyey abbase la inoo qurxiyey inaan wax u qurxinaa loo baahan yahay waxa weeye madaxweyne ku-xigeen annagu haddaanu nahay beesha reer gargaaraad oo ka tirsan degmada Luqaya saan ogahay waxaanu si gaar ah oon ku tirsannaa sidaa daraaddeed dadka inaad naga xigto oo waxa weeye gargaara oo reer gargaara ah taanu haysanaa saa dhaweynta ugu badanna waa sidaa wey kolley waad arkaysaan shucuurta ka muuqata bulshada madaxweyne magaaladani Gargaara 2010kii waxaa deganaa dad gaadhaya 120 qoys mar baan garanaynaa WFP garow yar qaybin jirto cid qaadata la waayi jiray maantana waxaa degan 850 qoys yaa magaalada Gargaara degan runtii waxay ahayd magaalo laba dhibaato ay ku soo dhaceen deegaankayga abaartii 2010kii deegaanka ay gaarka u ahayd Gargaara deegaanka loo degan yahay bay ahayd duufaantii sagarna waxay ahayd deegaanka ay aadka ugu dhacday xagilaan laga baxay magaaladan oo kaliya gudaheega waxa ku dhintay 18 qof alxamdulillah maanta waa laga soo doogtay magaaladu way dhisantay imika markaad ka baxdaan baad arki doontaane magaaladu way balaaratay waxa waqti doorashayna ku jirnaa aynu dalka la qabno waa la tartamayaa sidii awalba loo tartami jiray waxa tartamaya waxa weeye oo xisbiyo Gargaara waxa lagu yaqaanay xisbi xaakimka iyo codkeyga lagu ogaa ay ku soo caanamaashay xukuumadda ku ogeyd lagu dhaqaaleynayay reer Gargaarado waa ogey waan isogeyn anigu halkan ka soo jeedaa magaaladan si gaar ah gacanta la inoogu hayay maanta haddaynu halkii awal aynu maraynay marnana ka sii wanaagsan geesooda wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Umar Cali Cabdullaahi Bade iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland iyo weliba barsaabka gobolka Salal Mawlid Maxamed Nuur ayaa dadweynaha deegaanka degmada Gargaara bari uga mahadnaqay soo dhaweyntan ballaaran ee ku soo dhaweeyeen waxaanay halkaasi ka sheegeen Gargaara maanta waxay nasiib u yeelatay inuu madaxweyne ku-xigeenkii Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdi uu hogaaminayo wasiirkii caafimaadka iyo wasiirkii gaashaandhigga iyo kaadiriintii xisbiga kulmiye ay soo maraan oo u yimaadaan hawlaha doorasho xagga nabadgeliyo iyo xagga iskuubaabin in loo diyaar garoobo doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka reer Gargaara nasiibkaas ay hesheen nasiibkaas ay dheertiin dadka kale waa ay jirtay maalin iyadoo la ooyayo madaxweyne ku-xigeenku halkan yimid laakiin maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin madaxweyne ku-xigeenkiini waxa uu idin yimid iyadoo farxadda iyo reereynta iyo ina codkiina wax ku bedeshaan la isla eegto soo ma aha alxamdulillaah rabbil caalamiin maantana alxamdulillaah rabbil caalamiin dadka tirada leh wajiyada quruxda badan ay ka muuqato caafimaadka iyo muxuu ahaa wanaagga iyo inay ku faraxsan yihiin inay u soo banbaxaan ama u soo bannaan baxaan ama u yimaadaan madaxweyne ku-xigeenkoodii oo maanta u socda doorasho oo maanta u socda guubaabo oo maanta u socda in sidii aanu ka yeelay degmooyinkii kaleba la isku wacyigeliyo in doorashada aynu ku gallo si nabada in doorashada aynu ku gallo si anshax leh si asluub leh
oo sidii caadadu inoo haydna oo deegaankan lagu yaqaanayna aynu u codeyno xisbigeenna kulmiye marka shaxda qaranka saa loo fidiyo la eegayo mar walba waxa degmadan ay ku suntan tahay inay tahay degmo xisbiga muxaafidka ah aad baan idinku mahad celinaynaa insha allah codkiinana waxaan rajaynayaa hadduu ilaa idhaahdo maalinta doorashada 31 May inaad sidaa ugu badi doontaan xisbiga kulmiye khaasatan musharaxiinta gargaara u sharax ya hadduu ilaa idhaahdo waxaan doonaynaa oo kale waxaad ogtihiin dee marna waxaanu ugu hiilinaynaa xisbigeena mar dalkeena mar degmadeena lughayaad oo dee degmooyinku way tirsadaan codkani ciyaar maaha baahidaada degmahaan ayuu wax badan ka taraya hadduu ilaa idhaahdo madaxweyne ku-xigeenka somalilan xaaji cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil shira saylici oo ugu dambeyn dadweynaha degmada gargaaro bari la hadlay ayaa waxauu halkaasi ka soo jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo ku qontata arrimaha doorashooyinka ee dhowaan ka qabsoomi doona dalka somalilan madaxda iga horreysay sheegeen waxaan ku jirnay kormeer guud oo qarankii oo dhannaa ee xilka xukuumadda hayay qaranka maanta uu kala baxay gobollada sababta loogu kala baxayna ay tahay xukuumaddu tartanka guud iyo xisbinimadeeda marka laga tego xilka guud ee qaranka haysaa mas-uuliyadda guud baa saaran sidaa darteed waxaa la gartay in dhammaan madaxda qaranku wasiiradii oo dhani gobollada u kala baxaan oo ay doorashadaas oo doorasho culus maanta ah doorasho wax badan aynu ka rajeynayno inay dalkeena sumcad weyn u kordhiso ina doorashadaa lagu ilaaliyo ina doorasho nabad nagu dhacdaa oo lagu xoojiyo gobollada komishanada tegaya iyo barasaabadii hore usii joogay iyo ciidamadii amniga joogay waxaa lagu xoojiyey dhammaan mas-uuliyiintii qaranka ee wasiir hadday yihiin iyo haddee maaragtay xildhibaano qaran yihiinba guubaab baan ila soconnaa guubaabo ah in qof kastoo inaga mida mas-uuliyaddiisa saaro sida hore doorashada looga ilaalin lahaa xanaf iyo isqabqabsi sidii looga ilaalin lahaa waa kow odayaashu mas-uuliin baa wada tihiin mas-uuliyadda nin walba in buu hayaa marka in mas-uuliyaddan wada qaado waa kow laba inaad codkiina aynu kala habsaamin oo intii maanta kaadhka qaadatay aynan hadhow maalintaa keliya oo 12 saac oo 13 saac la codeynayo aad beelahdiina wax kastoo ku dhaafayaad ka door bido inuu codkaagaasi soo gaadho sanduuqa si aad degmadaadii codkeedii u kordhiso gobolkaaga u kordhiso qarankaaga codkiisa u kordhiso ta kale u dambaysa waxa weeyaan in xisbiga aad ka tirsaneedeen annagu waxaan naqaanaa degmada luqhaya gargaara magaalada gargaara maanta joogno inay yihiin dad ka soo jeeda xisbiga kulmiye taa darteed musharaxiinta laydiin soo xulay qaarna xildhibaanadii degmada loo soo xulay inaad u soo saartaan qaarna xildhibaanadii qaranka ee baarlamanka inaad waxaan rabnaa inaad ku tutuunsataan oo soo saartaan raggaa idiin shaqaynaya